ismaqal iyo daawasho wanaagsan saaxiibayaal halkani waa janalka dabagalka wararka waa 29ka bisha 7 sanadka 2020 qodobada ugu waaweyn warkeenana waxa kamid ah ra'iisul wasaaraha Itoobiya oo qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Farmaajo kalana hadlay kala diridii xukuumadda Khayre iyo qorshaha doorashada Soomaaliya Ahmed Kariye Qorqor oo la xoogan ugu jira in beeshiisa la siiyo kursiga ra'iisul wasaaraha maxay ka wada hadleen Sheekh Shariif Sheekh Ahmed Xasan Sheekh Maxamuud iyo gudoonka golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya oo kulan xasaasi ah ku yeeshay magaalada Muqdisho xildhibaanada baarlamaanka oo maanta kulan aan caadi ahayn ku yeelanaya magaalada Muqdisho dowladda federaalka Soomaaliya oo mar kale jawaab ka bixisay hanjabaadii beesha caalamka ee ka dhalatay xilka qaadistii Khayre Mareykanka oo qirtay in dad rayid ah uu ku laayay Jubbaland iyo ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia oo xukun adag lagu riday intaas saaxiibayaal waxay ahaayeen qodobada ugu doorkaroon warka janalka dabagalka wararka haddii aad ku cusub tahay janalkan ku soo biir oo subscribe saar kana mid noqo saaxiibada joogto u hela 24 saac wararka halkan aan ku baahino muuqaalka like saar waa inoo muhiim qaybta hoose commentiga nagula wadaag aragtidaada share garee oo la wadaag saaxiibada kuma hadsanid inaad ka mid tahay saaxiibada dhow ee channelkan muuqaalkan waa ka mamnuuc in lagu baahiyo page-ka Facebook haatana warkiyo fidsan wargeys ka mid kuwa ugu caansan ee dalka Itoobiya ayaa qoray in ra'iisul wasaaraha Itoobiya Abiy Ahmed uu qadka telefoonka kula soo xiriiray madaxweyne Farmaajo Abiy ayaa kala hadlay madaxweynaha go'aankii baarlamaanka Soomaaliya uu ku kala diray xukuumadii ra'iisul wasaare Khayre ra'iisul wasaaraha Itoobiya ayaa madaxweyne Farmaajo u rajeeyay in isbeddelka ku dhacay dawladdiisa ay guul u horseedo waxaana labada mas'uul sidoo kale ay ka wada hadleen amniga iyo doorashada Soomaaliya iyadoo Abiy Ahmed uu sheegay in dawladdiisu ay taageersan tahay sidii Soomaaliya ay kaga dhici lahayd doorasho ka duwan kuwii hore isla markaana beej cusub u furaysa hanaanka dimuqraadiyadda Soomaaliya marka laga soo tago warkan uu qoray wargeyska fadhigiisu yahay dalka Itoobiya ma jiro war ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya oo faahfaahinaya kulankan iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Itoobiya dhinaca kalena Qorqor ayaa olole xoogan ugu jira in beeshiisa la siiyo kursiga ra'iisul wasaaraha madaxweynaha maamulka Galmudug Ahmed Cabdi Kariye Qorqor ayaa dadaal xoogan ugu jira sidii madaxweyne Farmaajo uu ra'iisul wasaare ugu magacaabi lahaa qof ka soo jeeda beeshiisa ila wareedii lagu kalsoon yahay ayaa janalka dabagalka wararka u sheegay in Qorqor uu xarunta nabad sugidda kula kulmay taliyaha NISA Fahad Yaasiin isagoo kala hadlay arrintan kulankan ayaa daba socda kulamo kale oo Qorqor uu la yeelanayay xubnaha ugu miisaanka badan dawladda si uu xaqiijiyo in beeshiisa loo magacaabo xilka ra'iisul wasaaraha ee laga qaaday Xasan Cali Khayre madaxweynaha Galmudug ayaa sidoo kale la kulmay madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kana codsaday xilkan waxaana la filayaa in sidoo kale kulamo kale uu la yeesho saacadaha iyo maalmaha soo socda dadaalada xoogga leh ee wado Ahmed Kariye Qorqor ayaa soo bilowday intii uu socday shirkii Dhuusamareeb waxaana jira warar sheegaya in laga yaabo in wax uu ka ogaa xilka qaadistii ra'iisul wasaare Khayre qaar ka mid ah xildhibaanada iyo siyaasiyiinta ka soo jeeda Galmudug ayaa janalka dabagalka wararka u sheegay in qalad ay u arkaan Qorqor oo ah madaxweynaha maamul ay ku midaysan yihiin beelo badan uu si gaar ah wax ugu raadiyo beesha uu isaga ka soo jeedo kaliya madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa la rumaysan yahay in uusan weli gaarin go'aanka shakhsigii uu magacaabi lahaa xilka ra'iisul wasaaraha geesta kalena maxay ka wada hadleen madasha xisbiyada qaran iyo gudoonka baarlamaanka madasha xisbiyada qaran oo mowqifkeeda la xiriira doorashada dalka u cadeysay gudoonka golaha shacabka ayaa sheegtay in laga maarmaan ay tahay in doorashada lagu qabto waqtigeeda gudoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka Soomaaliya Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan iyo gudoomiye ku-xigeenka koobaad ee golaha shacabka baarlamaanka Cabdiweli Sheekh Ibrahim Mudee ayaa kulan la yeeshay xalay hoggaanka sare ee madasha xisbiyada qaran gaar ahaan madaxweynayaashii hore Sheekh Shariif Sheekh Ahmed iyo Xasan Sheekh Maxamuud kulanka ayaa waxa looga hadlay arrimo badan oo ay kamid ahaayeen sidii loo maareyn lahaa xaaladda kala guurka ee dalka uu marayo iyo doorasho ku dhacda waqtigeeda loona dhan yahay kulankan oo ka duwanaa kulamadii hore ayaa gudoonka golaha shacabku sheegeen inaysan matalayn kana socan hay'ad ka baxsan hay'adda ay gudoonka u yihiin ee golaha shacabka waxaana madashu gaarsiisay labada mas'uul mowqifkooda ku aadan doorashooyinka dalka waxa uu gudoonku sheegay in laga maarmaan ay tahay in xilligan adag ee kala guurka ah ay diyaar u yihiin wadanka
in xasiloonidiisa laga shaqeeyo laguna dadaalo sidii doorashada lagu qaban lahaa waqtigeeda. Hogaanka madasha xisbiyada qaran iyo guddoonka golaha shacabka ayaa isku raacay in laga fogaado dalka inuu galo marxalad deganaansho la'aan maadaama uu gabagaba yahay waqtiga hay-adaha dastuuriga ee dowladda federaalk Soomaaliya. waxaana hogaanka madasha xisbiyada qaran uu cadeeyay guddoonka golaha shacabka inaan la aqbali karin muddo kororsi laga maarmaan ay tahay in doorashada lagu aado waqtigeeda. sida la ogyahay muddo xileedka hay-adaha dowladda federaalk Soomaaliya oo ku mudaysnaa 4 sano waxa uu marayaa dhammaad waxaana la joogaa xilligii doorashada loo diyaargaroobi lahaa. umana muuqato in hogaanka talada dalka haya uu diyaar u yahay sidii doorashada waqtigeeda ugu dhici lahayd. sidaa darteed madasha xisbiyada qaran waxay cid kasta oo dareynaysa in doorashada ay ku dhacdo waqtigeeda kala shaqaynaysaa qaabkii ay ku suurtagali lahayd, taasoo loogu gol leeyahay in dalka uusan gelin faaruq dastuuri ah, ayaa lagu yiri war ka soo baxay madasha. waa hagaag saaxiibayaal, waxaan markan idinku duwayaa waryaheena magaalada Muqdisho oo noo sii aanbaqaadaya faahfaahinta wararkeena kale. waad maasantahay. halkan waa janalka dabagalka wararka daawadayaal. haatanna markaanu sii aanbaqaadno qodobada warka janalkana. xildhibaanada baarlamanka ayaa maanta kulan aan caadi ahayn ku yeelan doonaan Muqdisho. guddoonka golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya ayaa waxa uu iskugu yeeray xildhibaanada golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya kadib fariin loo diray xalay dhammaan mudanayaasha baarlamanka. xildhibaanada golaha shacabka ayaana lagu wargeliyay in maanta 29 Julaayo kulan xarunta Villa Hargeysa ay ku yeelan doonaan xildhibaanada fadhi aan caadi ahayn, iyadoo ajandayaasha laga doodayo ee xildhibaanada lagu wargeliyay ay tahay akhrinta koowaad ee wax ka bedelka sharciga burcadbadeeda iyo dib u eegista miisaaniyadda sanadka 2020. kulankan ayaana noqonaya kii ugu horeeyay oo yeesho golaha shacabka kadib 25 bishan markii foodo ay hareysay fadhigii baarlamanka kadib gudoomiye Maxamed Mursal Sheekh Cabdiraxmaan uu ku dhawaaqay inuu kalsoonidii kala laabtay xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. hase yeeshee kulanka maanta ayaa ilgaara lagu haya. wararka qaar ayaana la sheegaya in laga yaabo xildhibaano is-abaabulay oo horena uga soo horjeeday xilka tuuristii ra'iisul wasaare Kheyre inay foodo ka abuuraan kulanka maanta lagu madalsan yahay inuu ka qabsamo magaalada Muqdisho. warar kale oo helayso dabagalka wararkan waxay tilmaamayaan in laga yaabo kulankan inuu baaqdo maadaama xildhibaanada intooda badanba ay ka niyad jabeen ajandayaasha guddoonka habeenkii uu ku wargeliyo mudanayaasha kadibna maalintii la horkeeno ajandayaal ka duwan kii loo sheegay. dhanka kalena dowladda federaalk Soomaaliya waxa ay mar kale jawaab ka bixisay hanjabaada beesha caalamka ee ka dhalatay xilka qaadistii ra'iisul wasaare Kheyre. siyaha xilka wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawad ayaa ka hadlay falcelintii beesha caalamka ee ka dhalatay kalsooni kala noqoshadii xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre, kuwaas oo qaarkoodba u hanjabay dowladda sida Mareykanka iyo midowga Yurub. tan iyo sabdidii la soo dhaafay markii xildhibaanada golaha shacabka baarlamanka Soomaaliya ay kulan buuqareeyay kalsoonidii ugala noqdeen xukuumadda Kheyre, waxaa iska soo daba dhacayay dhaleeceen ka dhan wixii dhacayay oo ka imaanaya dowladaha iyo ururada taageera Soomaaliya. wasiir Cawad waxa uu sheegay inay soo dhaweynayaan talooyinka uga imaanaya beesha caalamka ee u badan in dalka ay ka dhacdo doorasho aan waqtigeeda dhaafin, raallina laga wada yahay. Axmed Ciise Cawad ayaa intaasi ku daray in beesha caalamku ay leedahay tala soo jeedin oo kaliya balse go'aankeeda ay u madax banaan tahay dowladda Soomaaliya. hadalka ka soo baxay wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya ayaana yimid iyadoo saacadii la soo dhaafay war ka soo baxay dowladaha iyo ururada daneeya arrimaha Soomaaliya la yiraahdo beesha caalamka lagu sheegay in dowladda Soomaaliya laga doonayo inay cadeyso waqtiga rasmiga ah ay doorasho dalkan ka dhaceyso. warkan waxaa lagu sheegay in beesha caalamka ay ka walacsan tahay in baarlamanka Soomaaliya ay qaadan waayaan go'aan ah in la waqtiyeyn waayo xilliga doorashada maalintii la filayay inay ka doodaan ajandahooda ayay sheegeen inay u bedeleen ceerinta xukuumadii ra'iisul wasaare Xasan Cali Kheyre. dowladda Mareykankana waxa ay qiratay in ay dad rayid ku dishay duqeymo ka dhacay Jubbaland. taliska ciidamada Mareykanka ee qaaradda Afrika loona soo gaabiyay magacooda Africom ayaa waxa uu qirtay in qof shacab ah uu ku dhintay duqeyn ay ka fuliyeen koonfurta Soomaaliya bishii Febraayo 2 sanadkan 2020. howlgalkaas dhanka cirka ayaana ka dhacay xarunta gobolka Jubbada Dhexe ee Jilib. magaaladaasi waa fariisinka ugu weyn ee xogaga Al-Shabaab. Africom waxa ay xaqiijisay in dhimashada 1 qof oo shacab ah iyo dhaawaca 3 kale kuwaas oo aanan soo muuqan intii aan qaadeen duqeynta ka dhanka ahayd shakhsiyaadka bartilmaameedka ah ayaana lagu xusay warkan.
qirashadan ayaana lagu cadeeyay warbixin maalintii talaadada ee shalay ahayd kasoo baxday taliskan, taas oo si joogta ah loogu soo bandhigo waxyeelada rayidka kasoo gaara howlaha ay ka fuliyaan gudaha wadanka Soomaaliya. bishii Abriil ayaa la bilaabay ka gadaal markii ay isa soo tarayeen sheegashooyinka waxyeelada shacabka ee duqeymaha ee la beegsadaan Al-Shabaab iyo Daesh, hase yeeshee ma jirto magdhow la siiyey dhibanayaasha. taliska oo sheegay in hadda baaritaan uu ku wado 4 dhacdo oo ku aadan inay shacab wax ku noqdeen duqeyn uu ka fuliyay Soomaaliya ayaa tibaaxay inay ka go'an tahay xaqiijinta inaysan rayidka wax ku noqon howlgalkooda. caqabadaha la xiriira rayidka inay wax ku noqdaan duqeymaha Mareykanka ka fuliya Soomaaliya ayaa loo gudbiyaa safaaradda uu ku leeyahay Muqdisho, Koongareeska wadankaas iyo waliba dowladda federaalka Soomaaliya. ugu dambeyntiina ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia ayaa xukun adag lagu riday. ra'iisul wasaarihii hore ee dalka Malaysia Najib Razak ayaa lagu xukumay 12 sano oo xabsi ah oo la xiriira fadeexadii musuqmaasuqa $5 bilyan ee lagu sameeyay sanduuqa horumarinta Malaysia. fadeexadan ayaa sanadkii 2018 sababtay in dowladiisa ay dhacdo, waxaana Najib sidoo kale lagu ganaaxay $50 milyan kadib markii lagu helay dhammaan 7 dacwadood ee lagu soo oogay ee la xiriiray xatooyadii lagu sameeyay sanduuqaasi. Najib oo 67 jir ah ayaa ka loolami doona go'aankan, wuxuuna ahaan doonaa xor inta laga soo gabagabeynayo racfaan qaadashadiisa oo la filayo in muddo ay qaadato. $10 bilyan ayaa laga xaday sanduuqa lacageed ee ugu weyn ee dowladda Malaysia, waxaana lagu qarash gareeyay wax kasta oo ay ku jiraan guryo qaali ah iyo sawirada farshaxan oo lacag badan lagu iibiyay. bangi maalgelinta ah ee Mareykanka laga leeyahay ayaana sidoo kale fadeexadan ee lugaha la gashay, wuxuuna wajahayaa ganaax xoogan oo kaga imaanaya dowladaha Mareykanka iyo Malaysia. xaakimka maxkamadda sare ee Kuala Lumpur Mohamed Nazlan iyo Mohamed Ghazali ayaana Najib ku helay 7 dacwad oo la xiriira $9.9 milyan oo laga wareejiyay sanduuqaasi laguna shubay akoonkiisa bangiga ee shakhsiga ah. guud ahaan daawadayaal wanaga inta warki aad kala socoteen janaalka dabagalka wararka, fadlan haddii aanu ku cusubtahay nagu soo biro subscribe sar janaalkan si aad uga mid noqoto saaxiibada sida joogtada u hela wararka 24 saac halkan ku baahino. aragtidaada halka hoose noogu reeb, muuqaalka share garee, waana ku mahadsantahay daawashada muuqaalkan oo aad kala socoteen dabagalka wararka.